Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta kormeer ku tagay xarunta taliska booliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliiska labada taliye ku xigeen iyo saraakiil ka tirsan ciidanka. Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta qorshaha sugidda amniga dalka iyo fududeynta dib u habeynta lagu sameynayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed si loogu guuleysto tayada ciidamadaasi oo qayb ka ah qorshaha guud ee ciidanka qaranka lagu xoojinayo tiro iyo tayo ahaanba si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka. Taliyaha iyo taliye ku-xigeenada ayaa Ra'iisul Wasaaraha xog ka siiyay howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ay ku sugayeen amniga dalka iyo guulihii laga gaaray iyo qorshaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed lagu geynayo deegaanada argagixisada laga xoreeyo. waxayna ballan qaadeen inay fududeynayaan qorshaha dib u habeynta ciidanka isla markaana ay laba jibaarayaan shaqooyinka qaranka ay u hayaan si loo helo amni iyo xasilooni kala dambeyn. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa isla maanta kulan la qaatay qabanqaabiyaashii iyo howlwadeenadii shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka ee Muqdisho ku soo xirmashay, waxaana kulanka la isaga xog waraystay hanaankii shirku u qabsoomay, caqabadihii la soo gudboonaaday iyo casharadii laga bartay ee looga faa'iideysan karo shirarka caalamiga ee Soomaaliya martigelin doonto. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.